iyadoo guud ahaanba Somaliland ay si nabad ah uga socdaan tartanka doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale ururada ayaa komishanka doorashooyinka ee Somaliland heer qaran iyo heer gobol ayaa kormeeray goobaha ay codbixintu ka socotay magaalada Burco waxaana halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay komishineer Siciid Maxamed Cismaan iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo militariga goobihii gobolka Togdheer si fiican bay u shaqeynayaan si wanaagsanna dadku way u codeynayaan oo waxa laale wax cilada ama wax dhibaato kama jiraan waxaan rajaynaynaa inay saa ku dhamaadaan oo ay dadku dhamaantood codeeyaan qof kasta uu kaarkiisa uu xaq u leeyahay uu soo qaato si uu u codeeyo oo codkiisa u dhiibto aad iyo aad bay farxad noogu tahay in dhammaan goobihii gobolka Togdheer ay noo shaqeynayaan ilaahay mahadi oo aanay wax maanta ciladii aanay gobolkayga ka jirin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu soo noogu wado dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan ku boorinayaa inay soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan oo si nabadgelyo ay codkooda u dhiibtaan ayaan farayaa shaqaalaha komishanka heer gobol heer degmo heer qaran heer goobeed iyo heer kormeer dhammaantood waxay imika ku wareegayaan goobaha qof walba waxa diyaar loo yahay in wax kasta oo soo baxa la xaliyo in wax kasta sidooda loo dhameystiro dhammaan laamaha amniga ciidamada booliska ciidamada qaranka iyo ciidamada kala duwan iyaguna ka qayb qaadanaya amniga iyo sugidda goobuhu waxay iyaguna ilaa xalay ilaa saaka u taagan yihiin sugidda amniga goobaha waxaan bulshada u sheegaynaa in ciidamada si dhow loola shaqeeyo in la ixtiraamo shuruucda goobaha iyo kala dambeynta iyo safafka waxa kale aanu dadka u sheegaynaa in dadweynuhu safafka ku jira ee goobahooda yimi ay heli doonaan xuquuqdooda cod bixinta sharcigu sidoo qorayo qof kasta oo safka ku jira 6 maqribnimo intii ay qaadanaysaba uu codeyn doona marka waxaan baan leenahay qof kastaaba 6 maqribnimo ka hor ha tago goobtiisa cod bixinta waana loo shaqeynayaa ilaa uu qofka u dambeeya goobaha ka codeynayo ciidamada iyo shaqaalaha waxa amar iyo tababar ay ku qabaan 6 maqribnimo qof kasta muwaadin oo safka ku jira in safka xagga dambe laga istaago inta ku jirta intii ay qaadanaysaba loo shaqeeyo marka waxaan baan leenahay dadku ha tagaan goobahooda waa loo wada shaqeynaya waa la wada codeynaya inta yarna la isku dul qaato saako ay taariikhdu tahay 13 bishii 11aad 2024 waxa dhamaanba gobolka Togdheer ka bilaabmay doorashooyinkii oo goob walba xilligii loogu talagalay saaka la furay oo goob kasta oo kamid ah gobolka Togdheerna ay si nabadgelyo uga bilaabantay sidoo kale gobolka Sool ayaa iyaguna qaybihii sanduuqyadu si nabadgelyo ku gaadheen oo iyaguna saaka xilligii loogu talagalay si nabadgelyo iyagana ay goob kasta uga bilaabantay ilaahay baa mahadle ilaa imika waxna loo sheegay ma jiraan dhammaanteedna waxa weeye goob kasta oo aan la xidhiidhnay waxay u socdaan sidii aan qorshaha u dejino komishanka ugu talagalay inay u socdaan alxamdulillah weeye howlwadeennada komishanka oo goob kasta ku qoran iyo kuwa farsamada oo mar walba goob kasta soo kormeeraya oo iyaguna daweynaya haddii maxaan ku dhahay wax cilada maxaan ku dhahay goobaha laga dareemo kormeer joogto ah baa dul socda ilaa iminkana wax dhibaato ah oo naloo sheegay ma jiraan oo noo soo gaadhin goob kastana waxaa nooga sheegayaan safafka si nabadgelyo ah oo maxaan ku dhahay dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan waxaan baan leenahay bulshada reer Somaliland ee maanta u dareertay codeynta masiirkooda codkooda ku dhiibanaya waxaan leenahay goob maxaan ku dhahay si nabadgelyo ha ku codeeyaan xiriir badan baa jiri doona kuleel baa jiri doona marka hal la isku dul qaato waxaan leenahay bulshada codeynaysa isku dul qaata ciidamada amniga sugaya iyo howlwadeennada komishankuna labadba way ku carbisan yihiin way ku tababaran yihiin sidii ay bulshadooda ugu adeegi lahaayeen iyadoo xaalad kasta maxaan ku dhahay loo eegayo hore waxay ugu tababaran yihiin in dadka maxaan ku dhahay nugul jilicsan baahiyaha gaarka qaba inay u fudaydiyaan maxaan ku dhahdaa inay codkooga dhiibtaan annaga gobolka Togdheer ahaan komishanka jooga waxay shaqadii wadaan si wacan goobihii si wacan ba shaqadoodu u soconayaan amnigii si wacan buu u sugan yahay booliska iyo militariga way sugayaan wax allaale iyo wax dhibaato oo goobaha ka jiraan ma jiraan waxaan dadweynaha kula dardaarmayaa oo aan ku boorinayaa in ay booliska iyo ciidanka jooga militariga ay si wacan ula shaqeeyaan amnigana ay ilaaliyaan xilligii ay komishanku gooyeen ahayd 6 galabnimona
cidda joogta xagga dambe ay ka maraan dabadeedna ay shaqadu sidaa ku dhammaystiranto haddii ilaahay idin ka dhigo intaasaan kula dardaarmayaa waa Guuleed Xaaji Gadhle Sahan TV magaalada Burco.